markay timaado xirfad waa aqoon iyo fulin isku daray qofka fulin kaliya waxa uu ma tarto aqoon kaliya waxa uu ma tarto isku darkooda marka waxa ka dhax imaado xirfadda sidaas markaan ku leeyahay waxa laga yaabaa in 10 sano ka hor waxyaabihii la isticmaalayay ama xirfadihii jiray training-ka ah inaysan maanta jirin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. 10 sano ka hor qaramada midoobay waxay u aqoonsadeen 15 ka jiro inay tahay maalinta xirfadda dhalinyarada adduunka. maanta waxa laga joogaa 10 sano aqoonsigaas sanad walbana waxa looga hadlay mowduuc gaar ah. sanadkan waxyaabaha ay ugu duwan tahay waxa kamid ah in diiradda lagu saarayo tiknoolajiyadda. sanadkan ciwaanka la qaatay ama looga discuss gareyn doonana wuxuu noqon doonaa Youth Empowering Through AI and Digital oo ku muujinaysa sida muhiim ay xilligan ugu tahay tiknoolajiyadda dhalinyarada. markii halkaas la marayo anaga waxaan nooga furan fursado aad u badan oo qaali ah. qof kasta oo dhalinyarana wuxuu ku hawan yahay in uu xirfad yeesho. markii la yiraahdo xirfadaha 10 sano ka hor xirfadii jiray maanta ma jiraan oo aad loo isticmaalo ama qaarkood si toos ah suuqa uga baxaan. tusaale ahaan 10 sano ka hor waxa la isticmaalaa in daatada lagu keydiyo buugaag maanta laakiin waxa loo bedelay in la isticmaalo softwares ama waxyaabaha la midka 10 sano ka hor waxa laga yaabaa in la isticmaali jiray traditional marketing oo qofka si toos inta loogu tago la yiraahdo waxaana gadnaa naga qaado ama maxay ahayd tolo la yiraahdo in boorar la dhigsado. maanta waxa isbedelay wax walba isbedelay in qofka mobilkiisa uu ka arki karo fariintaada. sidaas la mid ah tiknoolajiyaddu si xoog leh isku bedelay 10 sano ka hor ma jiri jirin AI ama maxay ahayd tolo artificial intelligence. laakiin maanta wax walba waxa fududay artificial intelligence markii halkaas marayda marka anaga dhalinyar ahaanteeda waxaan nooga furan fursado. tusaale hadii shalay waqti lagu lumi jir in data si manual loo kala saara maanta waxaa imaadeen si systematic ama automation ahaan loo isticmaalo. waxaa soo kordhay xirfado ay kamid tahay data analytics and data synthesis. sidoo kale waxaa soo kordhay waxyaabaha loo yaqaan UI UX designing-ka, software developers-ka iyo internet of things IoT iyo kuwa kale lamid ah. warbixinta Future of Jobs 2025 ee uu daabacay World Economic Forum waxa lagu sheegay in 80% shaqaalaha shirkadaha ay u baahan yihiin in xirfadooda la kordhiyo oo xirfado dheeraad ah la baro. waxa kale oo la sheegay 50% shaqaalaha adduunka inay u baahan yihiin in xirfadahooda dib u habeen lagu sameeyo, taasoo ka dhigan in waxyaabo badan oo hore loo isticmaali jiray aan brick iyo sanadada soo socda aan la isticmaali doonin. sidoo kale ILO warbixin ay qorto waxay ku sheegtay in 2028 ilaa iyo 30 in xirfado badan ay meesha ka bixi doonaan taa beddelkeedana ay soo kordhi doonaan kuwa kala dhowr ah. xirfadaha haddaba soo kordhay ee suuq ku jira waxaa kamid ah prompt engineering, data analytics, UI UX, software developers, IoT engineers iyo kuwa kale oo badan. qof kasta marka dhalinyaro ah wuxuu isweydiinaa adiga intee ka gali kartaa xirfadaas maxaase ka maqan. inta aadan isweydiin intee ka gali kartaa maxaase ka maqan u baahan tahay inaad ogaato suuqa maxaa ka soconayo. qofka dhalinyarada waxa join gooyay suuqa damo fursadda aragtid waa damo u baahan tahay xirfadeedana inaad soo heshid. markii halkaas marayda marka qof kasta oo dhalinyaro waxaan kula tali lahaa in uu marka hore daraaseeyo suuqa muxuu u baahan yahay kadibna maxay ahayd xirfadda ka maqan uu sidaas ku go'aansado.